بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيء. محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. الله سبحانه وتعالى kitaabkiisa munazalka oo muxkamka wuxuu ugu naadiyey dadka bani aadamka magaca loo yaqaano oo idil asagoo ku odhanaya yaa ayuha annaas wardadow. allah subxaanahu wa tacaala markuu magacaa ku dhawaaqayey qolo gaara khaas ugama dhigin, ma uusan sheegin midab gaara, mana uusan sheegin rag iyo dumar oo la kala qaaday, laakiin bani aadamka oo idil ayuu si guud alla ula hadlay subxaanahu wa tacaala. wuxuuna allah ku yidhi dadow waxaad ka baqataan rabbiga idinka idin khalqay. sababta aad uga cabsanaysaan allah waxa weeye alla waa allaha idinla xisaabtami doona, idinla amaalmarinaya adinka. saacadda qiyaamada gilgilashadeeda iyo dhaqaaqeeduna waa shay daran oo shadiid ah. saacadda qiyaamada axadka garanaya dunida tan hurdo badan lama yimaado, farxad badan adduunka kuma farxo. in badan ayuu isku dayaa rabbigii inuu raalli gareeyo subxaanahu wa tacaala, waxuuna ku dadaalaa xoog iyo xoola waxau leeyahay inuu ku bixiyo meel alla raalli ka yahay subxaanahu wa tacaala. allah hadduu qadaro waxaanu wax ka darsi doonaa arrimo ku saabsan shadaa'idda iyo dhibaatada ay qiyaamadu iska leedahay. marka mawduuca inta aanan u gudbin ayaan doonayaa bal inaan akriyo kolka hore xadiid uu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam oo ka mid a waxyaalaha lafahaantooda qiyaamada lala kulmi doono. rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxau yidhi idaa kaana yawma alqiyaama ya'ti allahu ila alcibaadi liyaqdiya baynahum wa kullu ummatin jaasiya. maalinta qiyaamada kolkii la helo oo ay dhacdo allah ayaa imaanaya subxaanahu wa tacaala, waxauna allah u imaanaya addoommada inuu kala saaro. ummad walbaana waa jaasiya ayuu yidhi sala allahu calayhi wasalam. jaasiyada waxaa la yidhaha axadka markay jilbuhu dhulka u yaaliin oo uu sidaa u fadhiyo, dhibaato badan ayuu dareemayaa, si ayuu u kuulanaa u jirhkiisa isugu duwan yahay. marka wuxuu yidhi ummad walba waa jaasiya, wa taraa kulla ummatin jaasiya. waata waa la yidhi subxaanahu wa tacaala. waad arki doontaa ummad walba inay tahay mid jilbaha ku arruman oo dhulka taalla, dhibaato badanna ay dareemayso mashaakilka maalintaa jira intuu la eg yahay. qabiilkii xoola isku hadlaynaya iyo dadkii uga sheeganaya iyo dadkii odhanaya annagaa maamulka iyo madaxda haysanaa, maalintaas ayadaa inay dadkooda wax u qabtaan ayaa laga doonayaa. axadkaan waxba qaba kara inuu diyaar garoobo hadda aad bay ugu habboonaasho badan tahay. si uu alla addoommada u kala xakumo ayuu maalintaas ayadaa imaanin ayuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh. fa awalu man yadcuu bih, axad alla loogu yeedho waxaa ugu horeeya ayuu yidhi sala allahu calayh wasalam rajulun jamaca alqur'aan, rajul qur'aanka kulmiyo aad u garanaya, wa rajulun kasiiru lmaal, wa rajulun qad qutila fii sabiili illahi ayuu yidhi sala allahu calayh wasalam. wax alla la hor keeno rabbi xisaabtan weydiiyo waxaa ugu horeeya saddexdaa qofood: rajul qur'aanka kulligii garanaya, rajul xoolo badan iska leh,
وحولي سؤال بدنيهين هي الرجل كلميي أيو أرانيا يعني ما الفرق بدن ألسي هي كل انت دقالك قالوا السنة المسلمين تقول جرتو صدح على أحد غفور مركز كان الله وحو كورا يا رجل في قرآن كجرني علمت ما أنزلت على رسولي وحان كبري وحان رسولك يا كسودجي وحان كادق من قرآن كجرني فماذا عملت فيما علمت مع كسو عمل فشي وحاد صبرتي وحاد برتي وآن كبري مع كبرتي وحان يا رجل كأسقها يا ربي قرأت فيك القرآن ربي او أني قدرت أيام قرآن كأو أغريي أني قدرت أيام علمي أبرتي وتعلمت وانبرت ضدك أيام بري سلا أيام أدلالي الله وحو أرد يا هلمر كذبت وتقول الملائكة كذبت ربي وحو لا يبين باتيكتي ملائكة الله وحو أرد يبين باتيكتي تعلمت العلم اللي يقال لك هو عالم وقرأت القرآن اللي يقال لك هو قارئ والأخير وقبرت علمك إلا قوير عالم وي قرآنك والأخير إلا قوير قارئ وي قرآنك وقرنا يا فقد قيل لك وانا اللي قوير واحد دولي وحاد ربتنا اللي قوير ملائكة الله أيها لك أليجين يا وجهك أيها لقبر النار أيها وجه الله طور يا أحد وحا عذابك جاي وامحي عالم علمك قرني ودينك يقانو ودينك بياني أيوة هاي وإخلاص الآن وحكسو قبلي وحو قبلي هلقو أمانو هلقو قدريو حالو من ما هلقا قدم بيصرا هلقو قادم لما ترى سيئ كانت رجل كثير المال كأها ربي وحو غرني سبحانه وتعالى أعطيت لك من أسلاف المال مالك يدي سأيان كسي حتى ما تفتخر إلى أحد إلى أن طفل أباهن فماذا عملت مع كسو عمل فشوحا أن كسي وحولها مع كقبتي فكاسوا لي يا ربي ما تركت من سبيل تحب ما أنا كسو تجين طريقة جاء أن ينفق فيه إيوح لقبحيه إلا عن طريق محاسو طبعا أنفقت فيه أو أنكبحي يا رأى قدرت أولا الجيدة ربي وحورنا يا كذبت ملائكة وحورا ليس كذبت بين باتشكتي حورها واد بحجرتي درين حلالكم أعظم بحجرين بركود هذا كب إلى المساجد ما هناها داركود لسأمال مساكين سيدو ما حدو سيئة اللي يقال لك هو جواد إلا قوي له هذا الجسوي هذا السخوي هذا الحورها واد بحيات قعميش اسمك قارا ولي ولكسن فقد قيل لك waxa aad doonaysidna waa lagu yidhi sidaas ayaa lagu odhanayaa buu yidhi sala allahu alayh wasalam halkaas ayaa malaa'igta alla inta loo dhiibayaa naarta lagu jiidayaa waa ninkii sadaqada badnaa oo xoolaha bixin jiray oo shilinkiisa loo maraynayay inuu janno ku iibsanayo waxa barakada ka qaaday oo balaayo ugu dhacday waa ikhlaas la'aan alla darti hadduu wax u bixin lahay dhibku kuma dhaceen axadkii mujaahidkay oo dariiqa ku dhintay ayaa rabbi ku odhanaya waatan geesi kaa dhigay waatan uwood ku siiye maxaad soo qabatood u dhimatay yaa rabbi qaatal waan dagaalamay oo waa lay dilay dariiqaaga adiga diintaadana u soo dhintay saan u dagaalamayey waan soo dagaalamay xataa qutila fiika ilaa adiga dartaa la ii dilay ilaa aan diintaan usoo dhintay oo aan shahiid sidaa ku soo noqday markaasaa alla ku odhanayaa kadabta been baad sheegtay malaa'igtuna ay ku odhanaysaa kadabta رسولك صلى الله عليه وسلم سأل عن هريرة الله يوحوي يا أبا هريرة أولئك الثلاثة سد على أوكواسو أول خلق الله تسحر بهم النار بويري وخلقك أن يكون أهرية أو النار تعالى ربسنا بويري صلوات الله وسلامه عليه خلقك الله وحا أهرية النار سلقوا أهرية وسد على غفور بويري صلوات الله وسلامه عليه marka haddaba akhi lmuslim wa ukhta almuslima axad walba muslima waxaad ku baraarugtaa ogow oo dad waxa janno lagu galo waxa ugu qaybo badan bay cadaab ku galeen dadkii waxa cadaabka ay ugu galeenna waa ikhlaas la'aan waa camalkood alla darti loo samayn waa waxa laga tegayo alla darti looga tegin axad walbow camalkaaga rabbi darti u samayn waxa aad samaynaysa kitaabka qur'aanka iyo sunnada nabiga ka qaado
وحا أبحوليسان حلال هالنقلين سي عمل كاغا الله أقبله الله رالي كاغا النقلين حديث كاسيا وحا الفاتي سسوس علي ترمذي إيه ابن الحبان علماء way صحيح yeeleen alfaadiisa qaar kamidana waxay ku sugantay agsarkeeda saxiixu muslim isagoo intaa ka bedeleen kana dhirir badan marka axad walbo waxaad ogaanaysaa aniga cibaado waan la imid kaliya arrintu ma ahan waxa aad la timid oo lagu badbaadayaa ma yihin wixii lagu badbaadayay mawsoo marta dariiqii loo marayay faman kaana yarju liqaa'a rabbi falyacmal camalan saalixa walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada وراحتي ربي لكل كيس الرجينية وعلامك الله كبقرية عمل وافقت كتابك يسوننا هالليم هذا مركا وعمل كاستمين يوسف إذا لنا إذكار على أقدرين إذكار حقوق أمانتي وقال حقوق قدرين يهي كان نقنن ربي الدرس سيلمكو أكاك بحو واحد سمين ربي الدرس أسمي حول مركز بحينيس لا تقول أرني لله وللرحم وحا إذكار الله يقرابنا لا يجوز هذا هذا سلاتنا هذا الشرك وهي لقامنا أكبر أيوه وحا لك يا ركما يالي سبحانه وتعالى وحكذا للدرس ما ربي إليها وصدقه وكذا وين يريد لغتها مركز سدنا القيامة بحلما أي درنتهي وحا سدنا القيامة اللي قبت بلار أي إذا نور أجسان إيا صدقت في عن إيا خيران لني ماذا خيرات في أساقها أولتي من وحبتك كتري ما هدونا للدرس الله صويني وهي عمل مركز وصويني وحا الله سردي يا سدح سردي سدح على سردي قفعان ليهين إن عمل كان لقام أقبله سردي لو ظهر يا مقرر يساوى إخلاص لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث صحيح وحوكيري إنما الأعمال بالنيات أعمال وحيكو أنسحلاوان نيلا وإنما لكل امرئ ما نوى أحد والبال وحو أساقوا النية سأل المرين تولا أيو إسكاليها مركبك مسلم كاوائنو تاقرتا أرنك أساقا إنو قرتوه أولا إخلاص أي الله بعنا سردق الله بعضو عمل كاللقاقية ليه وإنو كتابك يسننا وافقسيه لأن رسولك وحوه صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أحكي لي هذا عمل عن كتابك يسننا وافقسيه وجه الله رسوله ما شردون تلعب حق روح بالنار وهو ناجي وحد وانت السوي وجه الله رسوله ما شرك الآن والله قرن رمضوا حبك فلوايو شرط يسدح وامحه أحد كعملك السبيل يا وحا أوحري أما أولد السوائين حلاليهن لأن رسولك حديث صحيح محوطين إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا ربي وأرح ما كان الزهن واحد طيب أو النظيف وحكى ما أقبله أليق عملك السبيل يا وإلى النظيف تاي أو الشرك النظيف كتاي أو الإلحادية بالحل النظيف كتاي أو الحرام ولدية بغتي كب النظيف تاي تاسع لك الجرية سدح لو مركز لقاء لك الجلال الله سبحانه وتعالى يقبل عملك عملك هذا أيو أقبليا وأن بدالي دونتا وحلافك على أيك بدالي دونتا سيدا ربي لقى رجيني سبحانه وتعالى قولك أحد والبو دلال أو ربي كعب صوب الساد جنك وقالي لها كالسقيت أنا سودادقنا موضوعي أرنتين وهي أهوال القيامة الله سبحانه وتعالى محونا ويري يا أيها الناس اتقوا ربكم وارضوا وحا كحبسة ربك أذنك حياتنا إذن قليل وإذن خلقي ربكم وكان إذن أرزقيا وإذن نوريي وإذن دليا وإذن أمال مريني ربك كحبسنا وروحوا ربك إذن دليا لإذن كويني وروح ربك إذن كرهليان لإذن كأركن الله كبر سبحانه وتعالى سببت وامحة إن زلزلة الساعة شيء عظيم ساعة قيامة الزلزلة إيا بطنقاق إيا شدائد وشيء عظيم وهو وين روح مني كريو ما ننسى ساعة قيامة إلا وشيء حركات باللوضة أحد والباوح إلا من يوحك عن تقوهيو وما ننسى الله يري سبحانه وتعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها محقا ودونتا فالحالة سيؤتى لأرج أرضها سأيلا مرك إلهي تحريق أو أساق ربك سمايو والله دقدقاتيا دقدقاق الرنتعة
ilaahdaa gilgilaya dhulgariir sikino soconaya sikino oo aan daqiiqada gaarayn baa loo dul qaadanaayay maxay kulatay taxriigaa loogu talagalay saacadaya ka badan oo wadda rabbaaniga oo dhan lagu soo daayey ayay suurayso sida uu yaalla arag halkaa baa laleeyahay dhulgariir baa dhacay waa sikino yar baa loo dul qaadanaaya haddii daqiiqada laysku hayo amau saacada jiro bal ka warrama aqal taagnaanayaa ma jiro axad jirayaa ma jiro dabeecadda ayaa keentaa laleeyahay kaasna dabeecaddaa keentee gurmad ha loo soo diro haddii wax laga qaban doono maalinta dhulka sidaa loo lulo oo wax alla waxa culays ku jira banaanka la soo saaro oo insaan ku yidhahdeen war dhulka maxaa ku dhacay war waa sidee ardadu waxay sheegi doontaa akhbaarteeda wax alla waxa dhulka dushiisa lagu sameeyo warrabin dhulka hadlaya waxaad moodaa jaraa'idii wax ugu qoraayeen oo meel ugu qoraayeen waa cajaa'ib diiwaano meel ay ka yimideen aan la garanayn buu dhulka la soo bixin oo meel ay ku qorayiin aanan garanayn axadka qof heblo la yidhaha maalin hebla isagoo dushayda maraya wax heblow sameeyey saasa u yeelay inta naag ajnabiya aad adduunka dushiisa ku salaanta berinta dhulku wau ku sheegin haddaanan tooba keenin dhulku waa mugdi derbi baad iskula aadisa naag xaraama dhulku waa ku sheegin haye yoomaydin tuxadisu akhbaaraha way warramin lagu arki maayo iyo xagga iskaagiyo waa saacad dambe rabbi baa ku arkay oo dhulkuna waa kula joogin ardada dhan ayaa kaa warramaysa taako wax alla waxaad ku samaysay maxaad samayn doontaa marka axadkii cibaada ku sameeyey oo maxalkau ku sujuuda dhulka ku badiyey oo dhulka markau marayo cibaado iyo camal wanaagsan ku maray dhulku waxuu ka gelinayaa amaan wanaagsan waxuu odhanayaa rabbigow kana cibaadow la imaan jiray oo saasana u yeeli jiray oo adkaartaanba u sameeyey kii fisqi ku sameeye saas oo kale dhulku waa geynaya axadkii intaasoo saacadood ilow qayilow muusiqa dhagaysta meel u fadhiyey dhulku waa tegayaa yaa rabbi qaadkau igu cuni jira isagoo quud owliya ku sheegaya yaa rabbi muusiqa dabacsan ayuu igu dhagaysan jiray isagoo odhanaya naftaydaa ka hesho dooqaygo anigaa la socda yaa rabbi waxa kan ayuu yeeli jiro saas ayuu samayn jiray haye maxaad oran doontaa berrito axad walba waxaad berrito ku jawaabi doontaa lagaa doonaya dhulkii allah ku dacwaynaya sidada ay qiyaamadu leedahay ayay ka mid tahay carradaa aan dul marayno oo aan ku jiifanayno baa kulligeed berrito warbixin alla u geynayno subxaana wa tacaala haye marka intaan dhulku warbixin idinka geyn laydinku xadaabo rabbigii u tooba keenoo daacada alle ku dadaala waayo adilada qaar waxay tilmaamaysaa qofku hadduu tooba keeno ee u qaladka ka laabto in alla intii lagu qoray qaladka waa laga tiraa dhulkau ku sameeyena waa la halmaansiiyaa sausan berrita ugu markhaati furin yacni waxa markaad ka laabatay dhulkii aad qaladka ku gashay ilaah baa ka tiraya oo halmaansiinaya sausan kugu markhaati kicin ilaa waxaa la doonaya waxaynan lagu qabsan ama haddaad martigii gacmaha kula jirtid dhulku isaga berrita ku sheegaya carradaas oo dhan baa ku dacwayni yawmaydin tuxadisu akhbaaraha maxaa dhacay biana rabbaka awxaa laha rabbi ayaa u waxyooday oo yidhi warran wax alla waxa dushaada lagu sameeyey ka warran saas ayaa lagu yidhi maalinta ayadaa shida iyo dhibaato intay ka qabto allah muxuu yidhi subxaana wa tacaala maalinta qiyaamada ah yawma tarawnaha tadhalu kullu murdicatin cama ardacat waa maalin aad arki doontaan buu yidhi allah mid kastoo wax nuujinaysay kay nuujinaysaa waa iloobaysaa hooyada ilmaha nuujida ilmahooda way iloobin midda ilmaha xaloosha ku sida ilmaha way soo tuurin haye argagaxa iyo miskuladda ayaa faraha ka baranaysa wixii la dhalay iyo wixii wax dhalay ayaa isiloobay oo kala cararaya halkaasaa la kala tegi dadka qaaraanka isu aruuraya tolla ayayna ku hayaa waadadan dhibaato weli soo gaarin xagga tollahay ma jirto waana la is-iloolinba ilaa tii wax dhashay canugay dhashaa dhulkeeda horteeda yaalla mana ujeedo ma arki karayso dhibaatada jirta intay ka farabadi ka qabto marka maxalka isaga ayaa qof walba u ka horeeya rabbiga ka cabso oo isdiyaargaray inta gooru goor tahay oo adduunka kan ka saab qaado daacada alla ku dadaal rasuulka sala allahu alayh wasalam waxau yidhi maalintaas ayadaa oo yani hooyo walba ay canugeeda iloobayso inakum tuxsharuuna yawma alqiyaama xufaatan xuraatan gurla salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxaa laydin soo jamcinayaa buu yidhi idinkoo qaaqaawan oo wax la bisqaba uusan jirin nin walba sidii hooyo u dhashay sida malayg oo kale isaga u yaalla xataa nigis ma qabo masanta ma qabo finaanad ha sheegin dar kala ma jiro khalaas
رجع الدمر لو لا قاويها لكوانايا واحد والبا حاجه وسنتر كدغانيو في مجالكي اوي وزيرني في زيالكي مراحلي حاجه سنتر كدغانيا اوي في بلادي دوغيا والله انه كدغانيا جوارينا كلا جيدا منزلا نمشي وتمجران الله اكبر وحاجه كتاغن تحشرون يوم القيامه حفاة عراة غرلا مع انت كاغسي دار نول بيوم كيسا كماليا احد قد القوة جرى نول بوحو بطينا يا حاركي سويت عليك او واحد قد له سنجرين خلاص احد والبوحي باكو يا لا يقولي ولا رأي يقفك ولا قوي نوعا بلين اساقو ان درحي لك المعروف وحكو قمنا يا مال انت ايضا الله اكبر لما تقول انت اللي اكتو فيرتو الله سبحانه وتعالى وسوي كما بدأنا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين markii ugu horreeyay sidii aan idinku samaynay oo aad hooyo uga soo dhaxdeen adinkoo la bisqanin adinkoo waxba haysanin ayaan idinku soo eri doonaa buu alla yidhi waanu ballan qaadnay arrintaas ayadaa waana fulinaynaa ayuu allah yidhi annagaa samaynaynaa saasuu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala axad walba oo gaawan oo waxu gacanta ku haya la arag ba halkaa taagan caaisha radiallahu canha waxay ahayd inan caqli badan زوجته النبي قال صلى الله عليه وسلم رسولك أيه ويديار عجيب أي كنت يا رسول الله الرجال والنساء أينظر بعضهم بعضا رجع يدمرك سو قبل كود قبل كلام إيجيو رجع يدمرك سو قبل كود قبل كلام إيجيو وإسبيرين معايا فيها يومي صلى الله عليه وسلم أي كنت سو رجع يدمرك سيجي معايا نبي قصاص أيه أي كنت وحق حويك وقوي ورجع وقوي صورك ما في رسالة يا رسول الله وأقول يا عائشة الواحد ما ليس الناس كما جيران معانا عايش الأمر أشد من أن يهمهم ذلك أرنكوا وكدر أن يغفكوا إلى وكفكرة وقاويها اسكدري أحد كبير حاجة تاجد إلى وقاويها إلى الأغاسيل أليق اسمه بدين القاوين تاويري صلى الله عليه وسلم أغاني سوغين أغاني حتى ورس كهينين لما تدفر عندك بلطي waayo qofku markuu wax dareemayo waa marka weli ay arrintu sahlan tahay maskuuladu way ka daran tahay in laga fakaro ladis iyo in la yidhaho war dadku waa qaaqaawanyiina maxaa dhacay way ka daran tahay buu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh xadiidka asagaa muslim iyo qayrka ayaa qoray war dadka muslimiinta u sidada jirtaa intaas ayay la eg tahay waa mid kasii dhibaato badan oo markaad nusuusta akrida aad wareeri doontid war maalintaas ayadaa waxaa lagu badbaadaa iimaan iyo camal saalixa war iimaanka xaqiiqiya ha lala yimaado rabbi ha laysu dhiibo war rasuulka muxameda sala allahu alayh wasalam ha la rumeeyo oo dariiqiisa ha la maro war diintan magaxa laga dhigtay oo dhaqankeeda laga soo horjeeda ha layska deeyo ee diinta islaamka barta oo ku dhaqma aad janno ku gasheene war islaamku saatan ma ahan war ummadda la yidhaha ummatu muxamed laguma yaqaan xubaato iyo qurur inay ku shaqeeyaan way haddana dhaan ummatu muxamed ummatu khayr warba waxaad mooda ilaahayna anagu gaal uga dhalanay yuhuud iyo nasaara wixii lagu cadaabay oo lagu lacnaday ayaa gacmaha lagu hayaa see la doonaya cadaabka in looga baxo oo alla subxaana wa tacaala noo gargaaro war allaha laga cabsado maalinta qiyaamada tii ilmaha dhashay ilmaheeda way halmaantay tii uur kale ilmaha way soo tuurtay allah wuxuu yidhi isagoo ka hadlaya وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد الله بروفيرس تعبيرك او كعبيري وهو الله يري قيامنا وحال اركي دون تادتك كل بوت الي ولا سقران سيئين ويسر جوجك كضحيان ويسر ميالي اسعدان قرنين دكروا معهن كوة سقران او سراب علي waxa ay la dhacdhacayaan ma aha inay istaroogeeyeen bay kayini xabeen ama isku dureen ama ay qayileen oo ay marqaamada balaayo kale ku dhacday walaakina cadaab allahi shadiid waxa dadku ay la wareereen cadaabka allah shadiid ah balaayadii baa faraha ka badatay meel loo xabtaa lala yahay geel la gabaadsadaa lala yahay qabiil la hoostagaa lala yahay sargaal wax badbaadiyaa lala yahay si la yeelaayaa la garanayahay cadaabka allah faraha ka bato albaab walba ka soo furtay markaasa waxaaba laysu keeni laaya saa ay ummadii la wareerta buu yidhi alla subxaana wa tacaala oo waxaa halka ka jira nuucaa weeye marka shidada qiyaamada nooga horrayda saas ayay u taallaa iyo waxyaala kasii dhibaato badan lianna rasuulku muxuu yidhi sala allahu alayh wasalam xadiis saxiixa ku sugan allah aadam ayuu u yeelayaa maalinta ayadaa maxaa lagu orayaa aadam
akhrij bacsa annaari min durriyatak ilmahaaga waxaad ka soo saartaa naartu qaybta ay ku leedahay yaa rabbi kam imisay leegtaa buu odhanaya markaasaa lagu odhanayaa min kulli 1999 nafsa kunkiiba 999 naarta u soo saar rasuulku waxau yidhi sala allahu calayh wasalam fadaaka xiina yasiibu sagiir waktigaasu waa waktiga xanuga sagiirka uu ciraysanayo ou allah yidhi yawman yajcalu lwildaana siiba maalinta qiyaamadu waa maalin ilmaha dhashay ciro ka soo saarta oy ciroobaan madaxoodu cadaabo naxdinta iyo balaayadu inta faraha ka badato sidaas ayuu yidhi allah subxaanahu watacaala marka rasuulku waxau yidhi way ciraysan si ilmaha caloosha ku jidha way soo tuurin aad baa loo wareeragaya rasuulka waa la weydiiyey sala allahu alayh wasalam waxaa la yidhi yaa rasuul allah man ilwaaxid qofkaasu yuu noqon karaa waxuu rasuulku yidhi waxaad ku bishaaraysataan dadka say ugu badan yihiin naarta lagu gurayo yaajuuj iyo wamaajuuj baa laga keeni doonaa iyo waxaan diintaas ayagu shaqa ku lahayn laakiin dadka islaamka ah kollay jannada way ku badan doonaan ayuu yidhi sala allahu alayh wasalam siday adiladu caddaynayso marka axad walboo muslimo waxaad garataa in aadan ogayn masiirkaagu inuu janno noqonayo iyo inuu naar noqonayo saas darteed waxa lala yaaba ah axadka intuu doono maanta qoslaya aana ogayn allah inuu ka raalli yahay iyo in kale waxaa ka yaab badan axadka iloobay inuu rabbi caabudo ee uu qabri u diyaar garoobo isagana aan la ilowsanayn ee tilaabtow qaada laga qoranayo waa ka yaab badan yahay waxaa intaasoo dhan ka sii yaab badan axadka og maalin walba cimrigiisu inuu yaraanayo oo soo baaba'ayo cadaabka alla wax lagu gara mooye wax kalena aan kororsanaynin wa rabbigiina ka cabsadoo diinta islaamka ilaaliya oo saacadda qiyaamada shadaa'ideeda wax daran weeye u diyaar garooba allah subxaanahu watacaala oo ka sheekaynaya qiyaamada waxau uga hadlay suurado badan oo qur-aankiisa ka mid a waxauna rabbi yidhi maalinta qiyaamada markuu ka sheekaynayey fa idaa jaa'at isaaka saakada maalinta la yidhaha kolkay timaado oo caalamka sanqarta iyo musiibada ku xaminaysa maalinta ayadaa kolka ay soo xaadirto maxaa dhici doona waxaa dhici doona arag yawma yafiru lmaru min akhiih waa maalin ou qofku ka cararayo walaalkii yawma yafiru lmaru min akhiih wa ummihi wa abiih wa saaxibatihi wa baniih ba u fiirso likulli imri'in minhum yawmaidin sha'nu yugniih taas ayuu allah yidhi subxaanahu watacaala maalintaas ayada ah waa maalin ou qofku ka cararayo walaalkii yafiru lmaru min akhiih wa ummihi wa abiih waxau ka cararayaa hooyadii iyo aabbihii iyo hooyadii ayuu ka carari axad walba ayuu ka cararayaa markau ka cararo kuwa maxaa u dambeeya wa saaxibatii wa banii waxau ka cararayaa sawjadiisii waxau ka cararayaa ilmihiisii waxau ka cararayaa dadkiisii axad walba wuu ka cararayaa sababtu waa maxee maalinta ayadaa maxaa loo kala carari likulli imri'in minhum yawmaidin sha'nu yugniih axad walba musiibo isaga ku filan ayaa ku timid buu yidhi alla subxaana watacaala axad walba likulli imri'in minhum yawmaidin sha'nu yugniih sha'nigiisa ayaa ku filan oo isaga kafeeya mushkiladda isaga soo gaarta ayaan cid kale in la qaybsato maana awsan jeclayn maanta inuu qof kala ku qabto waa la kala cararin waa maalintay odhanayso hooyada wiilkeeda ku odhanayso maandowsow kuma lahayn hooyo fiican hooyo waa ii fiicneen laakiin maanta waxba laysula qaban karo waa kasii cararaya sawjadu sawdkeeda waa kasii cararaysaa axad walba qofka kale ayuu ka lumanaya waa sidada jirtaa intay laagtahay haddaba walaal ma waxaad garaba adahay maalinta sidadaa qabta inaad u diyaar garowdo ood rabbigaa ka cabsatid allah subxaanahu watacaala markuu ka sheekeeya waxau yidhi wajuhun yawmaidin musfira maalintaas ayadaa wajiyaalka qaarkood way dhalaalayaan aad bay u iftiimayaan dadka iimaankana wajiyaalkoodii daaxikatun mustabshira way qoslaysaa way bishaaraysan wajiyaalka qaarkood waxaa ka muuqanaya qosol bishaaro farxad iyo wanaag oo dadka iimaanka lahaa yawma tabyadu wujuh dadka waa la yidhi weeye subxaana watacaala laakiin waxaa daba yaallaa waa maxe wa wujuhun yawmaidin calayhaa qabara
ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة وجيالك قاركون واكوه وحاكوا الصبر الدسور ملو مبدئية وحضرا هي ترهقها قترة قترة لو حالينا ملب وفالح وملوغة كمدة ذلك النوعاس ويكون على واضك ووجهوا أو دلقيهي أو بدليهي أولئك هم الكفرة الفجرة وذكي دين تعالى إلي كل رغمان كقالوا بي أو فاجرين تعها أحكى كتابك قرآن كابلغا كبغا ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم بيسا كبغا وإن دين تاس أيلا حوق إيو حوق كبهم ونيا ويلا ودين تو كل رأان جعلان ذكي النوعاس أو كفرنا يوسف قليا دين تندقوا دمهان ومجونيان أحد والبو أيلا كسع أو كلمه وربك خير ويديسو دينتا لها كدغني الحوغا بدعاء حوغا كلا لا اسكو دراي وروحوا النبي سميه ككارتوما او ان لك عابده والنبي سيدي لو صلي جري او صليا او سيدي لو دكجري صلاه ودكنا او سيدي لو النبي سمي جري او صوما او طريقيا اسبوع دكو سميتين فراها كقاده عملك وسويني هدان دليل الله إيمان بريت وحو ربي كوغو أرندارا حاجات كراتمت من عمل عملا ليس قالوا مجونيان أحد والبو أيضا كسع وكلمه وربك خير ويديسو دينتا لها كدغني الحوغا بدعاء حوغا كلا يسكو دراي وروحوا النبي سميه ككارتوما او ان لك عابده والنبي سيدي لو صلي جري او صليا oo sidii loo duka jiray salaada u dukada oo sida loo nabigu u soomi jiray u sooma oo dariiqyada cusub oo dadku samaysteen faraha ka qaadeen camalka la samaynaya haddaan daliil loola imaan berita waxau rabbi kugu oran doonaa xaggeed kala timid man camila camalan laysa calay amrunaa fahuwa raddun axadkii la yimaada camal aan kitaabka qur-aanka iyo sunnada nabiga meel ku lahayn asagaa lagu celinayaa adugu ama ku sheeg bidca xasana ama ku sheeg bidca kale maalinta qiyaamadana wax qaban mayso culamada taabiciintu maxay yidhahdeen markay fasirayeen yawma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh waxay yidhahdeen wejiyaalka caddaanaya waxaa loola jeedaa axadka ku dhaqmay qur-aanka iyo sunnada wejiga madoobaanayana waa qof islaamnimo sheeganayay oo aan labadaa ku dhaqmin ayay yidhaahdeen xaqiiqaduna nuucaa oo kale wey ee rabbi ha laga boqo subxaanahu watacaala maalintaan qiyaamadu ay imaan doonto maxaa dhici doona rabbi waxau noo sheegay dadka qaarkii dhibaatada soo gaaraysa aayad kale fa idaa jaa'at iddaamatu lkubraa bu alla yidhi markay timaado daamada weyn daamada waa musiibada weyn oo daahiyada ah waa qiyaamada ah wasaacatu adhaa wa amar saacadda qiyaamadu xagga musiibada ayadaa daran ayadaa qaraar baran ayadaa imtixaankana la xali karin axa xelo kale ayuusan la arag rabbulciisa soo ugu talagalay ayay u dhacaysaa marka maalintaas ayadaa kolkay timaado dadku maxay samayn doonaan maxaa aan arkin allah waxau yidhi maalinta ayadaa yawma yatadakaru linsaanu maa saca insaanku waxay xasuusanayaan oy ka fakerayaan waxay soo sameeyeen haddaan camal ka fiicnaysan lahaa haddaan alla ka baqan lahaa waa la sallaayi doonaa la sallaaya maalinta wax taraya yawma yatadakaru linsaanu maa saca waxa daba yaalla mataqa waburisat iljaxiimu liman yaraa naarta jaxiime la yidhaahna waa la daahirin dadkii arkayay oo garayay ayaa loo daahirinaya oo loo dhawaynaya jaxiima waa naar aan jimacsanayn oo allaha jaliilka qofka aan ka baqin jilbaha uu ku qaadi doono oo haddaanan rabbiga u sujuudin aad iyada u sujuudi doonti dhexdeeda dhibaatada kugu soo gaari doonta rabbi oo garanayo marka allah waxau yidhi فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى أحدك أدونك كم حد قدب سميي أو ما دلب دواء أرضي أو واجباتك على الله يحي أو نرسي الدنيا الدورتي نار الجحيم اللي رأيه هو يلغى فإن الجحيم هي المأوى وماوي يمسوها يليه ما انت أسوح والبعيك لسحريان ما انت سلكة الوهينية أو سبحانه وتعالى أما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى أحكي ربك إسو ساقيسة كبغا ونفس ديسة هوى لك كررتون هذا ونفسيسة دبقلي
jannada ayaa loo haynaya. marka axad walbow rabbigaa ayaad ishortaagi doontaa ee saadan ugu eedoobin ka cabso. axad walbow naftaadu waxa ay jeceshay ha samayn ee waxaa rabbi jecel yahay samayn. axad walbow qofkaad doonta ha raacin ee rasuulka alla ku dayo. sidaa haddaad yeeshid jannada alle ayaa ma'wi iyo makaan aad u hoyata lagaaga dhigi doonaa. macnaha meesha yaallaa sidaa weye. marka rabbi ha laga baqdo subxaanahu watacaala oo xaqu sow yahay ha loo ilaaliyo, hana la ysaga taga xaaraanta iyo xumaatada. waryaan qaladaan la samaynin, waryaan diinta islaamka lagu tumanin, waryaan meel xun lagu dhicin. berrita marka alla la hortago subxaanahu watacaala. saacadda qiyaamada shadaa'ideeda siday u dhici doonto markuu allah ka warramayay waxau odhanayaa ida shamsu kuwirat wa ida nujuumu nkadarat. wa saacadda qiyaamada shadaa'ideeda waxaad ku garanaysaa buu allah yidhi waa maalinta la duubi doono xidigaha kan iyo qoraxda. ida shamsu kuwirat, qoraxda aad arkaysid ayaa laga duubayaa xirka, xidigaha ayaa samada ka soo daadanaya, wax walba oo koonka jooga ayaa qarrimaya sida wax walba isu bedelayaan iyo say arrintu noqon doonto oo alla ugu talagalay subxaana watacaala. wa ida aljibaalu suyirad, buuraha dhan ayaa la fujin oo la bitinaya. wa ida alcishaaru cudilad, halkii 10 bilood ka ahayd iyo aqalkii wanaagsanaa ee hadda la dhisay ayaa la halmaamaya. waa la iloobin, wax kasta waa la cadilin. gaarigii quruxda saba ee uu ninku wato hadda la soo dago iloobaya. wax walba qofku wau halmaamaya. mas-uuladda ayaa faraha ka badanaysa. waxay gaaraysaa marxalad allah mooye wax kaloo xale kala aysan jirin. markaasaa wax walba la iloobin. axad walbow dadaalinta goor tahay. allah markuu nooga soo sheekaya arrimaha waxau hadallada uu ku soo daray maalintaas ayadaa waida aljannatu uslifat, jannadana waa la soo dhaweyn, naarta saxiimo la yidhahdo waa la hurin. laakiin waxa arrinta ugu dambaysa waa maxe? calimad nafsun maa axdarat. naf walbaa waxay ogaanaysaa wax alla wixii loo soo xaadiriyey, waxay soo samaysatay, waxaad adduunka ku soo qabatay, waxay camal kuu soo hormaray ayaad garan doontaa. hadduu khayr ahaa khayr baad heli doontaa, hadduu bakti iyo wax daranahayna khalaas weeye. axadkii waktigiisa ku lumiyey inuu ku qayiro, inuu qabiil ku shaqeeyo, inuu xaaraan ku shaqaysto, inuu dadka islaamka isku diro, inuu waxaan loo baahnay waktigiisa ku baabi'iyo, maalintaas ayadaa ayay hor taalla. axadkii waktigiisa ku lumiyey inuu darsi diineed ku dhagaysto, islaam inuu wax ugu qabto, dadka muslimiinta inuu isu garab taago oo wanaag ka shaqeeyo, maalintaas ayay wax u qaban doontaa. axad walba maalintaas ayuu garan doonaa xaaladdu say noqonayso. axad walbow rabbigaa ka baq subxaanahu watacaala. rasuulka oo ka sheekaynaya qiyaamada wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh, xadiis saxiixa ku sugan waxau ku oranayaa tudna shamsu yawma alqiyaama, maalinta qiyaamada iridda ayaa la soo dhaweyn xataa takuuna qadra miil, ilaa ay dadka usoo jirsato miil qadar le-eg. miilka waxaa loola jeedaa wax kuu dhow, haa ka dhow ayaa la keenayaa iriddii dhammeed. marka la keena rasuulku waxau yidhi sala allahu calayh wasalam fayakunu alcarad, dadka waxaa xaggiisa ka imaanaya dhidid aada u fara badan. fa minhum man yulzimuhu alcarad, dadka waxaa kamida qof dhididka ou laqayo, axad walba wau dhididaya. jirkiisa ayaa waxaa ka daadanaya biyaha kaadaay faraha ay qabaan dartood dhulka ayay gelayaan, aday ku laqayaan. haddana qofka dembigiisa oo badanya sidaas ayaa loo gelin. dadka qaarkii maxaa u imaanaya? fa minhum man yakuunu ilaa xaqweyn, axad dhididkiisu waxau ku joogayaa makaanka u marada ka xirto, axad waxau ku joogayaa ilaa rugbatay jilbaha, axad waxau ku joogayaa bartamaha, axad halkaka qofna wau laqayaa buu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh. marka dhididkaasuna maxau noqo? fayakunu xaraqu nnaasi calaa qadri acmaalihim buu yidhi sala allahu alay wasalam. axad walba camalkiisu sidau ahaa ayuu dhididkiisu noqonayaa. qofkii khayr badan samaystay dhidid ma ka imaan maayo, ama wax yar bau noqonaya oo harkaba la siinaya. axadkii khayr daraa wau dhididin, biyaha jirkiisa ka yimid baa asaga laqaya. taasi qurux badan baad wadatay, duwaybiog jeemis ayaa soo xidhatoo kugu dhagan. waxa aad qaban doonta maantaasa lagaa rabaa. suuqa marka loo daadegayo aad baa loo xaragoonaa,
xaragadu waxay wax tartaa marka rabbi laga cabsanayo ee rabbigiin ka cabsada inantii qaawaneed ee dirca daga baneeye la yidhaha dariiqyada ku martay maalintaasaa laga rabaa waxay la bisanaya inay la timaado inanka asagu inantaa saaxiibka lee silsilada surka ku sita maalintaa hadduu nin yahay isbadbaadiyo maanta reer magaal baanu nahay waxaa naloo diidayaa waxaana waanu ka helna garbaha nuuxiya laakiin axadkii raganimo isku haya maalinta ayada ah hay-adda ku badbaadinay hadda diyaar garayso oo wax ku qaban laheed dadku ay wada dhididayaan kulligood oo qof walba dhidiskiisa u laqayo war axad walbuu rabbigaa ka cabso rasuulku waxau yidhi sala allahu alayh wasalam maalintaas ayadaa shadaa'idda dhacaysa markuu ka sheekaynayay yaquumu nnaas dadku way istaagi doonaan lirabbi alcaalamiin caalamiinta rabbigooda ayay isu taageen markay istaagaan axad walba wou dhigidin xataa yakuuna rasxuhu ilaa ansaas udunayn ilaa awdhidii ku soo gaaro halkaa dhagaha bartankooda ah waa qofkii khayr ka daraa laakiin dadka muslimiinta ah oo rabbigood ka xabsaday carsiga alle ayay harsanayaan sida axaadiistu caddaynayso carsiga alle marka la harsanayo kaali riix laguma helo qabiilkan weynaa laguma gaaro si hado laga soo qaata reer galbeedkana laguma garo saraakiil baan ay markay adduunka joogana maya waxa lagu gaaraa waa alla ka xabsi ee rabbi ka cabsada rabbi addoomma u noqdo diintiisa u shaqeeya oo yaan laga xaroonin diinta alla in lagu camal falo maanta qofkii la yidhaha rabbigaa ka cabso uga xaroonayaada ilaa axad alla u naxariista mooyaane maalinta xaaladay xumaa doonta allaha waxau yidhi kallaa idaa dukkati ilardu dakkan dakkaa waa maalinta dhulka laga dhigi doono dakkan dakkan waa la burburin baabi'in kulligeed ayuu allah baabi'inaya subxaana wa tacaala markii rabbi ou burburiyo maxaa imaanaya wa ja'a rabbuka waalmalaku safan safa rabbi ayaa imaanaya malaa'igtiisa ayaa soo xaadirin ayagoo saf ah malaa'igtii allah markay sidaasu dhacdo waji'a yawmaidin bijahannam naarta jahanamo la yidhaha ayaa la keenayaa yawmaidin yatadakaru linsaana wa annaa lahu dikra maantaas ayuu insaanku waansamaya maxaana loo soo xaabudi waaye maxaana looga soo baqan waaye maxaan diinta ugu socon waaye intaan meel daran u socda ayuu ku sallaayi doonaa sideeday waana ugu sugnaato waa la leeyahy intuu dunida jooga muxawaanada u hadda qaadanayo u qaadan waaye rasuulka oo aayaddaa fasiraya wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam yu'taa bijahannama yawma alqiyaama lahaa 70,000 zimaam maca kulli zamaamin 70,000 malakin yajuruunaha maalinta qiyaamada waxaa lala imaan doonaa jahannama 70,000 oo hoggaan ayay leedahay 70 meelood ayaa laga soo hagayaa oo xarig baa ku xihan xarig walba waxaa hogaaminaya ayuu yidhi sala allahu alayh wasalam 70,000 malag 70,000 oo malag baa jiidaya halkii xarigba 70,000 oo malag ayaa soo wada halkii 70,000 oo malag ay waday ayay odhanaysaa naga wareega waxaan doonaynaa cadowga alla inaan ka caarsanno maanta waa jahanaba waxay odhanaysaa cadowga rabbi baan ka caarsanaya sida uu rasuulku xadeeyo marka la soo dhaweeyo madax baa ka soo baxaya indha oo wax ku arkale carab oo ku hadlale markaasuu leeya dad baa la ii soo diray aaway ini waqaltu waxaa la iisoo wakaasha dadka qaarka inaan gurubsado axadka marka ugu horeeya u qaadan doonaa waa qofke waa bikulli man dacaa maca allahi ilaahan aakhar axad kasta alla micigiisa ilaah kale la caabuday ayna min akala risqa allah aawa qofkii risqiga alla cunay oo hawadiisa ilaaha ka dhigtay aawa qofkii risqiga alla cunay ee salaada alle ka tegay waa dadka alla ilaaha ay caabuday aawa qofkii risqiga alla cunay ee yidhi qur'aanka alle in wax lagu xakumo lagu dhaqmo laayquma ahaan xagow aaday halkaasaa laga gursanaya marka dadku hadday rag yihiin oy wax isku hayaan ciidan la xarbiye iyo saraakiin la hagaajiye hadday wax qaban doonto maalintaa waxaa qabteen axad walbow rabbi marka la hortago waxaa ku anfacaya waa iimaan iyo camal saalixa adoo ninna ka xaroonin oon oranin diinta anaa la iila jeeday rabbigaa ka cabso ad haddana kuugu jirtaa axad aada xoola siinaysa ma jiro haddaad rabbi ka cabsatid qof aad adiga wax u qabanaysa malaan rabbi inaad ka cabsataa aday ku anfacaysaa cabsi la-aantana adaada dhibaata kuugu jirtaa ee qof walbuu rabbi ka cabso
bikulli man dacaa maca allah ilaahan aakhar ayuu gurubsanayaa madaxaas ka jahanama ka yimid yow kaloo gurubsanaya axad kasta oo ilaahay micigiisa ilaah kale la caabuday waa qof kasta oo rabbi waxa uu iska leeyahay qolo kale u meeriyey war alla kaliya ayaa la baryaa alla kayrkii ninkii baryaa ha iska ilaaliyo rabbi diintiisa ayaa lagu dhaqmaa wax lagu xakumaa mabda laga dhigtaa wax kale ninkii dhaqan ka dhiga ha iska ilaaliyo waxau soo gelaya halka la sheegayo axad kasta ee yidhi waxaan ilaahay xallilin xalaal weeye ayadaas xadiidkaasa ku jira haysa la iska ilaaliya arrintaas iyada sida dadka odhanaya oo kale qaadka oo kale waa quutul awliya awliya way cuntaa laakiin awliyada shaydaankaa cuntaa awliyada ilaahay ma cunto rabbigii ka xisooda axad walbaana dib ha u fiirsado waxau ku leeyaha waan markaansado maskaxda si weyga noqonaysa haddaad markaansanta inaad waalanta daliilka uma ahan meelaha marka maraysa waxaa lagu leeyahay qaadkiya waxaa ka sheegay mid qayinaa ku dilaya oo dee wax u dilayaaba inuu waanagayso maahan oo rabbina laga xisooda wadal qaymaha ha la noqdo bahalka ma lagu xayidaa caafimaad miyaa lagu helaa diin miyaa loogu shaqeeyaa ma lagu bartaa maxay tadaa isweydiiya adinku ninkii xaroonaya isagaa yaqaan caradu waxba tari mayse ninkii daliil banaynaya haya hanoo keeno anu ka yeelnay haddaanan haynin rabbigiin ka xabsada oo diintu waxay tahay ku dhaqma axadkii xaroonaya soo maahan caradu meesha rabtaasay la gaaray waxu qaba kala naqabto allaha laga bogo subxaana watacaala bikulli man dacaa maca allahi ilaahan aakhar halis ayuu ku sugan yahay rabbi keliya ilaaha laga dhigto ha la caabudo ha laga amar qaato ha laga wax kasta isaga ha loo soo celiyo taas ayaa muslimiinta laga doonaya axadkii rabbigaa keliya caabud aysan ku fillayn waxau samayna isaga yaqaan ninkaan alla keliya caabud tiraada wuxuu ku leeyahy awliyada la dilaya awliya way jirtaa rabbina qur-aanka ku sheegay in la baryana ma jirto taas waa in la gartaa awliyada ninka intiraa waa ku gaaloobaya ninka yidhaha waa la baryana waa ku gaaloobaya marka rabbi ka cabsada oo alla keliya hala barto hala baryo waxa loola jeedo meesha ku jira bidcada awliyada inkinaysaa war anagu awliya wada dalla waxa bidca utaqana la yaqaane aladiina aamanu wa kaanuu yattaquun laakiin weligaa la yidhaah ma mid buuba ma mid xagga ordaa maya nin kastoo iimaan la oo alla ka cabsada nin iyo naag waxau doona noqo waa weli ilaahay haweenka maxaa looga saara awliyada haween awliya lagu jira waxaad arkaysaa xataa qabyaalada ku jirta awliyadanima nafte raggaa gooni tagay ninkaan waa awliya ninka maxaa naga awliya loo keeni waayo ilaa naagaa lagaba cilaalo badneen yani waxaad arkaysaa in xataa iyadana siaasla qabli ay ku jirto waxyaala la yidhaha qawmiya oo xoogaa madaxbuus ah reer hebel weligoodii reer hebel weligoodii iyo reer hebel weligoodii waa maxay awliyadan geedaa lagu keenay orda abubakar iyo cumar noo doonaa dad awliya ruaysrataan laga dhaafa sheekada yaaqay oo ilaahay ka cabsada subxaana watacaala oo diinta iyada lagu cayaari dadkii la hubay waxa ay ahaayeenna waa laga tegey markaasaa qabiil walba wuxuu yidhi annagaa mid leh annagaa meel leh annagaa kida ah haye waa qabyaalad rasmiya ood u jeedid oo aan diinna meel ku lahayn rabbigiin ka xisaaba nin alla ninkii alla caabuda ha yaraado ha weynaada nin iyo naag waxau doona ha noqdo waa weli allah ilaah baana noo sheegay axad walbana kalaamadiisu waxay la egtahay inta iimaankiisu la eg yahay ayadoo la duray laguna xadgudbaynin ilaahayna dad karaamada inuu leeyahay lama diidana laakiin ka fiirsada waxaad sheegaysa maxau daba dhigay rasuulku sala allahu alay wasalam maba maxau gursanaya wa bikulli jabbaarin caniid axad kasta oo jabbaar oo caniid ah axad kasta oo ummadda dhiba oo madax adag oo mas-uuliyad iyo maamul haya ilaahay waxa uu ballan qaaday in maalinta qiyaamada halkaa laga qaato nin kasta ee mas-uuliyad hayo dadka ha isku dhibin mas-uuliyadda waxaa ugu yar ninkii reer u taliya oo haween iyo ilmo mas-uulka ah ha isku dhibin dadka ninkii iskuul mas-uulka ah ninkii hay-ad mas-uulka ah ninkii dagasarahaya axadkii mas-uuliyad hayow dadka ha dhibin haddaan ummadda dhibto rasuulkii alla waxau yidhi allahuma man waliya min amri ummatii shay-a ilaa ummadayda wax yaroo iska leeda ninkii qabta ee dhiba fasbug caley ilaahaw dhib alla ayow ninkii u naxariisana farfug bihi u naxariiso annagana waxaan leenahay nin kasta ee jaga qabta jagadaasma ha ugu yaraato inuu naa guursadeen ee sida sharcigu ahay aan ku maamulin allaha dhibo sidii sharcigu ay qofkii wax ku wadana rabbi ha wanaajiyo iyo qofkii doonayaba axad walbau rabbigaa ka cabso adaadan kugu jirtaa axadan ugu jirta ma lahan diintaan nin lagu baryaya ma lahan marka runta laga hadlo runteeda la sheegay ninkii ka tagayo ninkii ka xaroolana inuu shaqa kuma lahan axad walba o kitaabka inaad baratid oo sunnada aad baratid oo waxaa lagaa raba aada ogaatid adaa maslaxadaada ku jirtaa war rabbigiin ka cabsada
oo saad shilimaadka u doondoontaan diinta u doondoona oo saad khalada ugu dadaashaan si ka badan cibaadada ugu dadaala oo saad qabiilka wax qadariyaan amaad u xariirisaan si ka badan sunnada nabiga u qadariya u xariiriya oo rabbigiin ka cabsada oo waxaad ku walaalowdaan islaamnimo ha noqoto oo waxaad u dhibataan diin ayadoo loo dagaalamayo ha noqdeen oo xoolihiina meeshaad ku bixidaan jihaad kaliya ha noqoto iyo dad masaakiina oo muslimiina ama qaraaba oo wax u qabanaysaan oo xadgudub iyo xumaan kana midnaba ku jirin waa haddaad wanaag doonaysaan waa ilaa haddaa wanaag la doonaya waxa naga horeeya waa qiyaama waxaa kaloo madaxu qaadan doonaa dadka wax musawiriinta oo ayagu taswiirka ku shaqeeya marka maalinta nagu horeysa waa maalin qiyaamo la yidhaha oo ilaahay oran doono liman ilmulku lyawm maanta iyo awoodda iska leh lilahi alwaaxid alqahaar allaha waaxidka oo keligiisa isagu uwada badan leh maanta maxaa la samaynayaa alyawma tujzaa kullu nafsin bimaa kasabat laa dulma alyawm naf walbaa waxay samaysataa maanta alla ka amaalmarin axad la dulminayaana ma jiro rabbi xisaabkiisuna mid soo degdegayo weeye axad walba maalintaasaa kaa horeyda isdiyaargaray marka waa maanta waxaa la yidhi ina yawma alfasli kaana miiqaata kala baxa maalintiisu waa maalin miiqaada oo la garanayo mawcid iyo ballankeeda wel ilaahay subxaana watacaala sameeyey haye waa maanta wax la kala saari doono markaa ka gadaal maxaa imaan doona ina yawma alfasli kaana miiqaata alla waxau yidhi yawma yunfaku fi suuri fata'tuuna afwaaja suurka marka la afuufo dadka buunka loo yeeriyo maalinta su imaan doonaan la hortiisa adigoo jameexaada imaan doonaan marka loo yeeriyo buunkay kusoo baxayaan jameexaad koox loo socdo axad maqnaa karaa ma jiro wafutixat isamaa fakaanat abwaaba samada ayaa la furayaa kulligeed markaasaa laga dhigaya wadooyin ay malaa'igtu ka soo degayso wasuyirat iljibaalu fakaanat saraaba buurahana kulligood waa la fujinaya markaasaa laga dhigaya wax la firdhiyo oo lagu sii dayo hawada waxaa daba yaalla waa maxay ina jahannama kaanat mirsaada naarta jahanamo la yidhaha meel aan la dhaafi karayn ayay taagan tahay oo siraadka ayaa dusheeda maraya jannada waddada loo marayo lidaaqiina ma'aaba dadka xadgudbay oo diinta ku dhaqmi waayana marjic iyo meelay u noqdaan ayadaa laga dhigayaa buu alla yidhi ayaday u noqonayaan laabisiina fiiha axqaaba sanaday ku nagaanayaan tiradooda allah mooye cid kaloo garanaysa aan la arag laa yaduuquuna fiiha bardan walaa sharaaba biyo qabow iyo hurdo iyo naxariis midna lagala helo wax laga yaqaan ma jiraan maxalka asaga ayaa dadka u dambeeya waxa looga badbaadi karaa waa cabsi alle dadka alla ka cabsada alla waxau yidhi ina almuttaqiina fii maqaamin amiin dadka rabbigooda ka cabsaday maqaam aamin ayay ku sugan yihiin sannaad iyo ilo durduraya dhexdooda ayay ahaanayaan rabbiga u gargaarayo xowlka nabiga ayay kaxabayaan wanaaggaas ayay gaarayaan ee muslimiinta u dadaala oo rabbigiina ka cabsado xaq u sameeya u ilaaliya lianna rasuulka sala allahu alayh wasalam maalmaha uu geeriyoonaya dadka waxau kala dardaarmayay axad walba inuu dhinto isagoo danigiisa alla u hagaajinaya oo rabbi khayr ka rijaynaya diinta allana u shaqaynaya waxauna rasuulku oran jiray ummadayda kulligeed jannaday gelayaan axadkii jannada inuu galo iska diida maahayn markaasaa la yidhi yaa jannada inuu gala diiday man adaacanii dakhala aljanna waman casaanii faqad abaa ayuu ku jawaabay axadkii aniga dariiqayga mara oo sidaan yeela jannada wou geli axadkii aniga ikhilaafaana jannada inuu galo waa iska diida buu yidhi sala alla alay slam waa diidi ma rabo haddau rabo mase maxamed ha sheegto axadkii wadadayda soo maraa janna wou geli kii diidaana jannada inuu galo waa diida buu yidhi salawaatu llahi wasalaamu caleyh marka walaalayaal allah baanu ka baryaynaa inuu xaqa nagu sugo dad islaam oo diinta ku dhaqmana uu naga dhigo aan dadaalno oon diinta u shaqayno allahuma ya muqalib alqulubi sabir qulubana calaa diinik allahuma sarif alqulubi walabsaari sarif qulubana calaa daacatik rabbana aatina fi dunya xasanata wafi laakhirati xasanata waqina cadaab annaar rabbana laa tuzig qulubana bacda id hadaytana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا
واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اجعلنا من أهل الجنة ولا تجعلنا من أهل النار. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اسقي وضعتك على الشيوعية والصليبية والصهيونية وكل من حارب الدين. اللهم اعظم دولة الإسلام على وجه الأرض كلها واجعلنا سببا لها. اللهم صل على نبينا محمد. آمين.